Waxaa magaalada caasimadda ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay barnaamijka Dooda Qaran ee dhalinyarada kaasi oo socday muddo 2 cisho ah waxaana barnaamijka soo qaban qaabisay madasha Muwaadin Platform. Dooda sanadkan ayaa diiradda lagu saaray higsiga dhalinyarada iyo hoggaanka dalka iyadoo ujeedadu ay ahayd in la abuuro madal ay dhalinyaradu ay ku falanqeeyaan caqabadaha haysta iyo kaalinta ay ku leeyihiin hogaaminta mustaqbalka dalka. Munaasabadda intii socotay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, aqoon-yahano, dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar iyo marti sharaf kale kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay horumarinta awoodda iyo doorka dhalinyarada. Intii uu socday barnaamijka madasha Muwaadin Platform waxay soo bandhigtay cilmi baaris ku saabsan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo ay ka mid yihiin tahriibka, shaqo la'aanta, ka qaybgalka colaadaha, isticmaalka maandooriyaha iyo caqabado kale oo saameyn ku leh nolosha dhalinyarada. Ka qaybgalayaashu waxay sidoo kale ay ka doodeen xalal wax ku ool ah oo loogu gudbi karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyadoona adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la abuuro fursado shaqo, lana xoojiyo waxbarashada iyo xirfadaha, sidoo kalena la kordhiyo ka qaybgalka dhalinyarada hoggaanka iyo go'aan ka qaadashada dalka. Horweynta siyaasadda cusub way bedeleen. Waxay ku bedeleen siyaasad ah maxaa cunaa maxaa cabaa. Taas waxay bedeshay ama waacisay jihadii qofka markuu siyaasad soo galiyay intentionkiisii bay bedeshay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka, madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka Thomas Jefferson waxa laga sheegay intentionka qofku siyaasadda u soo galayo siyaasad waxa ka jidba keeni kara qofka the one who cares about the life, human life and happiness, not their destruction. Eraygaas isticmaalaya qofka ku dadaalaya horumarka bulshadeed iyo farxadooda inuu soo celiyo ba siyaasad macna ka keeni kara, laakiin qofka u taagan inuu burburiyo ama aysan macna u sameynayba inuu burburto. Marka jiilkeena cusub waxay wax kasta ka dhigeen oo horweynta cusub oo siyaasadeed hadaf la xaqiijinayo badanba ma jiro. dal kastaahi hadduu rabo inuu fayoobaado horumaro hore u socdo inay siyaasadiisa hagaagto. Siyaasadiisa inay hagaagtana waxaa qayb weyn ka ah hoggaankiisa inuu hagaago. Dal aan madaxdiisa ama siyaasadiisa hagaagsanayn hoggaaminta siyaasadeed hagaagsanayn waxay la mid tahay sidii qof waalan oo kale. dalkeena sidaan ognahay 91 ilaa hadda dunida waxaan u xisaabsanahay waalid siyaasadeed. Waalid siyaasadeedna badi kuma imaanin maxaan ku raad dadweynaha balse waxay ku timid guul dareysi ay guul dareysteen horweynta siyaasadeed oo sida Dr. Anwar Xalow ka dhawaajinayay 69kii ay ahaayeen dadka militariga inay dadka kooban oo abaabulan ahaayeen kadibna la waayay wax abaabulan lagu yiraahdo Soomaali uma baahna. Ninka Jarmalka wuxuu yiri 10 kun oo Iiraaniyiin waa rabaa laakiin 10 kun oo Soomaali ma rabo. Ana meel laga rabin aadid waddankaagina aad dhihi karin aniga waddankan iska leh shaqadan xaqan u leeyahay difaacdo hal xabaar baan ku gabagabeeyo dhalinyarada waxa la yiraahdaa waxa ma qaban kartiin waalidiku adeeganaya laakiin fiiri waxa la qaban karaa dhalinyaro waxa jira markay Facebook wax ku soo qoraan la bariyo oo la yiraahdo ka saar $2,000 qaado qofkii hadla dawladdu waa kireysataa hadalkaada hadduu soo wax tareenin maxaa loo laalushaa dadka hadalkaada hadduu soo wax tareenin dadka maxaa loo xirayaa haddii inta sacdi bajaaj ay qabatay bajaajleyda meeqo 40 kun 50 kun la sheega Soomaaliya 200 oo qof oo bajaajlayaal ah oo xuquuqda bajaajleyda u istaagtay la heli lahaa waddanka waxa laga qaban lahaa bulsho waxa la yiraahdaa dawladda haddii 3% ay ka soo horjeesato xuquuqda waa laga helaa 5% ilaa 8% la gaarsiiyaa dawladdan in la ridaba marka qofkii raba inuu nolol iyo karaamo iyo sharaf helo waa inuu isagoo horta banaanka soo istaagaa oo yiraahdaa waa ka maarmaa waxa la rabaa in lagu laaluusho marka waddanka ma la isku halayn karaa qof karaamadiisa ma u dagaalami karaa hadda maan leeyato tacadigii ugu dambeeyay gabadha 200 oo nin ay ku dhagdhageen aan ka hadalnay baa anagina la fogay ilaa wasiiradii ilaa gabadhii gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir ahayd ay anaga wixii marin habaabisay marka waxay la tahay inaan qofna u soo bareeri karin laakiin qodobkaaga baa xoojinaya hadii la badan yahay 40 kun oo qof halka saacadii bajaaj kaligeed hadii dad badan ay hadli lahaayeen oo xaq qodob dastuuri ah dabcan ka hadashay iyadoo xaq u lahayd bay ka hadashay muwaadinada ahaan ka hadashay hadii 40 kun oo qof ay ka hadli lahaayeen dabcan waxaan qabaa inaan la xireen oo 3 sano iyo 70 bari xitaa toona ma xirnaateen dabcan dadka inta tira leeg dawladdu ma xiri karto xabsi leegna uma leeymaayeen jiro hoggaaminteenu
qofku xitaa xilka markuu ka tegayo wuxuu ka shaqayn gadaashii xitaa inaan la wanaagsanaanin xaaladda mees ah waan waxba laga qaban karin madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkan Tanzania Julius Maalimu Nyerere wuxuu yiri quote fiican buu leeyahay uu ka hadlayo qofka hogaaminta wuxuu yiri you are not successful until and unless your successor succeeds qofka ka dambeeya haddii uusan guuleysanin adiguna aad ka shaqeynayso si ku guuleysan lahaa adigu successful mati Soomaalida marka cagsi baan u qaadanaa waxaad arkaysaa marka dhaqankii Soomaalida xagga markii guurka laga hadlayo waxa la yiraahdaa ninka hadduu naag furo gadaashii nin kale hadduu guurso inay caruur dhashay wanaagsanaato ma jecel ahayd xagee loo fakanaya waxaan leeyahay aayadii aan markale ku celino rajada iyo naxariista Ilaahay inaan laga quusan laakiin meel aan hadda dhihi karno oo loo fakanaya inaysan jirin laakiin su'aasha marka hore ku bilowday oo ahayd 2035 aniga yani ulama jeedin 2035 wax rajo hadda aniga ii muuqata yani ma jiro laakiin waxa ka wada xaaladda hadda markii la qiimeeyo qof kasta dhalinyarada la weydiiyo يعني سيدي واجي هو ردك وفكري جريان وقال هذا وفكري ميان ردك يعني واقع هذا جرا وحيس لين أما يوحول بكسي دران يعني هذا شغل نقول الله هذا يارين تبى زبور كل قد فشل تقويمي هروين تعمى اللي فيلي يركان إنه especially تاكد كرينا إن البنك كان عنده كو وحول كسر دومه دبيت اللي تكسينا ودعونا هاي سياسة دو عن السياسيين تواقيت كم إذا اللي تكلكين iyagoo dhan elitko dhan siyaasiyiinta kaliya ma ahan marka waxaynu xoog saaraynaa oo aynu ka dibad gareenaynaa fashilka ku yimi elitka siyaasadeed ee dalkeena 20 sano u dambeysay taas way jirtaa taas waxaa kaga jawaabayaa horta hogaamiyaha maxaa la rabaa hogaamiye wanaagsan iyo hogaamiye xun jiro hogaamiyaha wanaagsan waxaa ka dambeeya markuu xilkan ka dago dad wanaagsan dad soo dhaweeya meeshaas wuxuu ka noqonayaa wuxuu reebay dad aragti lagu reebay hogaamiyaha xunna bilcagsi haduu baxo meesha waxaa ku soo haraya dad iska dawareeg ah maanta oo waxba ay qabanayna iska dawareeg ah oo ayana qabiil ugu qufule hadda xaaladan taagan tahay oo madaxweynahan hadda mudxeleedkiisu dhamaaday oo xaalka wadanka joogo dhalinyarada wuxuu ku hayaa caqabad weyn ku hayaa anaga biri dalka leenahay waa mucaaradi karnaa mucaarad waa naasax laakiin wax waa sixi karnaa madaxweyne wixii ka qaldan waa sixeena wixii ka waa meediya waa soo istaageena waa hadleena aniga shaqo abuur ma jirto dhibaatada koowaad ee dhalinyarada haysta waxay tahay shaqo abuur ma lahan haddii xitaa shaqadii helaan waxaa jirto wax la dhahaa qabiil hadda madaxweynaha waxaa jirtay dawladii hore wax yar ina waqtigan aad u yahay dawladii hore farmaajo kulli waa xanuunsanahay maskaxda xanuunsanahay xanuun caadeynahay waa wada fashilmeena waa wada ceebaysanahay waa iswada haynaa sidii sheekadu sheegaysay guryahan iska gubeena qabiil baa isku dileena innaga waxaan nahay bulsho dhakhtar wada jiifta dhakhtarka ma maqasheen caashaqa Umar Dowle ma maqasheen bulshada Soomaaliyeed inuu xitaa dhakhtarka dib u dhac ka soco sheekhu inta jageysay maskaxdaadu yay noqon bay maqal lagu leeyahay yaan 10 muftaax iyo lagu furan masaamiir ninkaas waa 8 ma sada xiliyaas qiyaasaya Ibrahim Gar lagu dhintay qaran dhisana daaran waxa la ka rabaa aragti fog hay'ado adag garaadka iyo kartida muwaadinka haddaynu garaadka kobcino qofka muwaadinka oo labadan dayacno isma soo gaareen aragti fogna ma way iman karto haddaan muwaadin fiican ba aragti fog keeni kara hay'ado adag yaa keeni kara muwaadin okay xaalad noocee ah ayay ku jiraan dhalinyarada Soomaaliya ogaanshaha cudurku waa gobol ka mid ah caafimaadka ogaanshaha cudurku waxay inagu waynu ognahay moogtay inuu been isu sheegno maaha taageerida hay'adaha dawladdu waynu ognahay tabartooda haddii ay noqdaan kuwa ku dhisan qof fiiriso mucaaradka ah waa aragtay markay Kismaayo isugu tageen dadka hadda raba inay dalka hogaamiyaan waxay ku heshiin waayaan noo hadla oo kaliya wajadadaas marka su'aashu waxay tahay dhalinyarada maxay ka qaban karaan arrimaha noocaas ah xiriir hufan isdareen iyo hogaamin tusaale ahaan kobcinta dhaqanka ay qaladaadku yihiin fursado waxbarasho
ma aha ciqaab iyo kalsoonida lagu dhiso mar kasta u dhaqmo si anshax leh oo ilaaliya balamaha ballanqaadasho tallaabooyinka muhiimka ah waxaa ka mid ah iswacyigelinta dhageysi firfircoon qarashada qaladaadka muujinta ixtiraamka iyo gudbinta aragtida yoolalka cad taasoo dadka ka dhigaysa inay dareemaan ammaan oo la qiimeeyo mawaadiida muhiimka ah ee hogaamiya daacadda ah daacadnimada iyo anshaxa had iyo jeer sameey waxa saxda ah xitaa marka ay adag tahay daacadnimo iyo qaladaad hal su'aalan weydiinaa hal su'aal waxay tahay sidee lagu heli karaa hogaamiye daacad ka hufan qabyaalad iyo musuqmaasuq wabillahi tawfiiq